warbixin ku saabsan taariikhda magaalada Mandhera waxa inoo haya wariye Faisal Aligo. Magaalada Mandhera ayaa waxay ka mid tahay deegaanada hoos imaada gobolka Soomaalida degtay waqooyi bari Kenya. Magaalada ayaa waxay ku taallaa goob istiraatiiji ah dhanka ganacsiga iyadoo leh xuduud saddex xigaal ah waxayna isku xirtaa wadamada kala Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan magaalooyinka Suufti iyo Balad Xaawo halkaas oo ugu yimaada badeecooyin kala gedisan. Kadib dastuurkii aftida loo qaaday sanadkii 2010 ayaa magaalada Mandhera waxay yeelatay maamul iyo hay'ado kala gedisan oo ay ka dhalatay dhaadhicinta awoodda dawladda dhexe iyadoo ay hoos imaadaan ilaa iyo 6 deegaan. sidoo kale waxa marhubiga daabo kaas oo kheyraadkiisa ka faa'iideystaan dadka ku nool degmada Mandhera ayagoo beerta miraha noociisa kala gedisan. Soomaalida degta guud ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxa ay ku eedeeyeen dawladda dhexe inay gacan bidixeen jirtay iyadoo dawladda ka jawaabaysa eedeymahaasi ayaa waxa ay keentay dhaqaale loo magac daray equalization fund oo looga talagalay in lagu horumariyo deegaanada ka liita dhanka horumarka. Walow ay jiraan dhaqaalahaasi dawladda dhexe u qoondeyso horumarinta deegaanada la gacan bidixeen jiray ayaa qaar ka mid ah shacabka dega countiga Mandhera ayaa aaminsan horumarada lagu taameeyay in wali aan la gaarin hase yeeshee ay jiraan dhismaha wadooyinka hoteelada iyo maalgashiga noociisa kala gedisan ay ka jiraan ama laga dareemayo magaalada Mandhera. Horumarada aan kor ku soo xusnay ayaa waxa caqabado ku noqda mararka qaar amni darro deegaanka oo kaga yimaada ururka Al-Shabaab oo ka dagaalama gudaha Soomaaliya halka weeraro dhowr ay ka geysteen dalkani Kenya.